nabadgelyo saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa oo qorsheeyay inay dagaal ka bilaabaan magaalada Muqdisho xilli saacadihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaq ciidan la dareemayay iyo ciidamo ka amar qaata madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo la wareegay garoonka diyaaradaha iyo teendhada Afisyooni wararkii ugu dambeeyay ciidamo ka tirsanaysa oo rasaas ku furay xildhibaano ku sii jeeday guriga Sheekh Shariif Sheekh Axmed haddaba iyo qaar ka mid ah xildhibaano ku xiran Sheekh Shariif oo ka tirsan xisbigiisa oo dil ka badbaaday sidee yaa qorsheeyay dilkii uu ka badbaaday gudoomiye Dhaban Cad iyo Rooblo oo war ka soo saaray weerarkii lagu qaaday gudoomiyaha iyo xildhibaanadii lagu soo doortay ceel waaq oo la dhaariyay lana siiyay kaarar intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fisan aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa markaasi waxa ay diyaar u noqdeen inay dagaal ka bilaabaan magaalada Muqdisho guri uu leeyahay ama gaari uu leeyahay Ilyas Cali Xasan oo kamid ah mudanayaashii hore aqalka sare ayaa lagu rasaasiyay agagaarka Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho gaariga la xabadeeyay ayaa waxaa saarnaa laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka cusub kuwaas oo ku sii jeeday hoyga Sheekh Shariif Sheekh Axmed ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waa xaalad abuur u muuqata in la rabo in dagaal laga huriyo dagaal taas oo dowladda markaasi nabad iyo nolol ay rabto inay xamar gubato oo dhinaca kale ay soo jawaabaan balse xildhibaanadii saarnaa iyo ilaaladii la socotay aanan waxba soo gaarin wuxuuna sheegay Ilyas in gaarigii uu ahaa nooc aan xabada karin balse rasaasi lagu soo riday ay burburisay daaqadaha gaariga oo ahaa qooqan waxaa aaga garoonka diyaaradaha iyo xaafado ku dhow laga dareemaya dhaqdhaqaaq ciidan maadaama askar ka tirsanaysa ay maqribkii gudaha hotelka ay ka socotay dhaarinta xildhibaanada lagu doortay ceel waaq ay gudaha u galeen isla markaana ay dil ugu hanjabeen gudoomiyaha ku-meel gaarka ee baarlamaanka Soomaaliya ee markaasi Dhaban Cad kooxday niisa ee weerartay gudoomiye Dhaban Cad iyo xildhibaanadii uu dhaartooda ka qayb galay ayaa rasaas ka dhexriday hotelka wuxuuna gudoomiye Dhaban Cad weerarkaasi ku tilmaamay shirqool loo dhigay isaga iyo xildhibaanadii markaasi la dhaarinayay dhinaca kalena xubno ka tirsan niisa ayaa waxa ay markaasi iyagu hore u qorsheeyeen in ay la wareegaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana la sheegay in ciidamo ka amar qaata ay guud ahaanba la wareegeen garoonka diyaaradaha iyo waliba teendhada Afisyooni oo maalinta ama maanta ay ka dhacayso doorashada xubnaha aqalka sare markaasi ammaankeedana si weyn halkaasi loo adkeeyay ciidankaasi waxay ka tirsan yihiin neesa waxaana la sheegay inay gacanta ku dhigeen ciidamadii ilaalada u ahaa gudoomiye Dhaban Cad iyo kuwa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo xilligaasi hotelka ku sugnaa weerarka kadib waxaa la sheegay inay goobta tageen wasiirka amniga Cabdilaahi Maxamed Nuur iyo taliyaha saldhigga booliiska ee garoonka Aadan Cadde Cabdi Fitaax halkaas oo laga soo dhexkaxeeyay gudoomiye Dhaban Cad iyo mas'uuliyiin kale ee golaha shacabka ku sugnaa waxaa aad baraha bulshada loogu baahiyay muuqaal raggii la qabtay oo indhaha ka xiran waxaana la sheegay in lagu wareejiyay ciidanka midowga Afrika ADMIS kuwaas oo xabsiga u taxaabay gudoomiye Dhaban Cad oo warbaahinta la hadlay dhaarinta xildhibaanada iyo wararkaasi kadib waxa uu sheegay in markaasi shalay gelinkii dambe goobo badan oo laga hor istaagay taliska booliiska Soomaaliya iyadoo ugu dambeyntii lagu weeraray hotel gaar loo leeyahay oo xildhibaanada ay ku dhaariyeen sidoo kale gudoomiye Dhaban Cad ayaa wacad ku maray in weerarada iyo jidgooyada loo dhigayo aysan cabsi gelin doonin oo doorashooyinka dalka ay degdeg u dhameystiri doonaan si markaasi maalmaha soo socda u yeesha baarlamaan cusub dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ku sugan magaalada Geneva ee wadanka Switzerland ayaa war ka soo saaray weeraradii shalay gelinkii dambe lagu qaaday gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka xilli uu doonayay inuu dhaariyo 16 xildhibaan ee lagu soo doortay ceel waaq ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble wuxuu aad ugu xun yahay ficilada guracan iyo isku dayada isdaba jooga ee lagu carqaladeynayo habsami u socodka doorashooyinka ficiladaas oo ugu dambeeyay isku dayga maanta lagu beegsaday gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka howlwadeenada golaha shacabka iyo 16 xildhibaan ee dhawaan lagu doortay degmada ceel waaq ee gobolka Gedo ayaa lagu yiri qoraalkaasi ra'iisul wasaare Roble ayaa digniin u diray taliyayaasha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda isagoo ugu digay inay ku lug yeeshaan falalka guracan ee lagu carqaladeynayo habsami u socodka doorashada oo heer gabagabaha maraya sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu ka codsaday inay isha ku hayaan dadka ka dambeeya abaabulka falalka lagu carqaladeynayo dhameystirka doorashada
ra-iisul wasaare Roble oo qadka taleefanka kula hadlay gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka ayaa ku bogaadiyay sida geesinimada leh ee guddoonka ku-meel gaarka ee labada aqal hawsha markaasi baaxadda leh ay markaasi u wadaan kuna dhiirigeliya inay waajibaadkooda qaran gutaan. ugu dambeyntii qoraalka waxaa lagu yiri ra-iisul wasaare waxa uu xusuusinayaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka inay markaasi saaran tahay mas-uuliyadda ugu sareysa ee dalka, waxaana uu ku dhiirigeliyay inay u midoobaan dhammaystirka doorashada dalka si looga gudbo marxaladda haatan uu dalka ku jiro. dhinaca kalena Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isaga waxa uu ka hadlay isku daygii shalay gelinkii dambe markaasi la doonayay in lagu qaarijiyo gudoomiyaha ku-meel gaarka ee baarlamaanka Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa nasiib darad ku tilmaamay qorshayaasha madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday uu ku carqaladeynayo doorashooyinka dalka oo ay u dambeysay weerarkii xalay lagu qaaday gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka oo ka qaybgalaya munaasabadda dhaarinta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. waxaa madaxweynuhu ku tilmaamay in lagula xisaabtami doono saraakiisha amniga ee fulinaya amarada sharci darada ee ka soo baxaya madaxweynaha xilku ka dhammaaday, kuwaasoo lagu fashilinayo doorashooyinka gabagabada maraya. madaxweynaha waxa uu markaasi ayaa ku ammaanay guddoonka ku-meel gaarka ee golaha shacabka sida nafurnimada leh ay u gudanayaan waajibaadka ka saaran socodsiinta howlaha doorashooyinka. ugu dambeyntiina waa madaxweynaha uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagaan xildhibaanada baarlamaanka iyo guddoonka ku-meel gaarka si dalka looga saaro marxaladan adag, isla markaana ay indhaha ku hayaan doorashooyinka qorshaha lagu carqaladeynayo dalka ay ka dhacdo doorashooyin gabagabada maraysa, taasoo mas-uuliyaddeeda ay qaadayaan saraakiisha ciidamada iyo madaxweynaha xilku ka dhammaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. xildhibaanada lagu soo daartay ceel waaqo oo markaasi iyagu si sharci daraha kusoo galay baarlamaanka Soomaaliya ayay rabaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo weliba Axmed Madoobe in iyagu markaasi baarlamaanka ay xoog ku fariisiyaan. ugu dambeyntiina waxaa magaalada Muqdisho iyadana xalay lagu dhaariyay 16 xildhibaan ee lagu soo doortay magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo, taas oo ka dhigaysa inay yihiin xildhibaano sharci oo ku biiray baarlamaanka 11aad. xildhibaanadan oo xalay xaflad weyn loogu qabtay hotelka SYL ee magaalada Muqdisho ammaankeeda si weyn loo adkeynayay ayaa waxaa markaasi kasoo qaybgalay xildhibaano ka tirsan garabka madaxweyne Farmaajo, kuwaas oo iyagu markaasi goobjoog u ahaa dhaarinta xildhibaanadan lagu soo doortay magaalada Garbahaare oo isagoo gudoomiyaha ku-meel gaarka u diiday inuu dhaariyo. xildhibaanada 16 ee la dhaariyay ayaa sidoo kale la siiyay kaararka aqoonsiga, taasoo u fududeynaysa inay ka qaybgalaan kulamada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad. xildhibaanada ayaa 23 bisha lagu soo doortay magaalada Garbahaare kadib markii guddiga doorashada heer federaal ay go'aamiyeen inaysan doorasho markaasi ka dhici karin magaalada Garbahaare oo ahayd deegaan doorashada labaad. dhaarinta xildhibaanadan iyo siinta kaararka aqoonsiga ayaa ka dhigan inay soo afjarantay doodii ka taagneyd doorashada xildhibaanada gobolka Gedo, iyadoo ay jirta in xubno kale lagu doortay magaalada Garbahaare. xubnaha lagu soo doortay Garbahaare ayaa markaasi galabta ka soo muuqday muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayagoo hortaagan derbiga xerada Xalane, isla markaana codsanayeen la dhaariyo, balse ma jirin cid u jawaabtay ama la hadashay, iyadoo markii dambena lagu dhaariyay gudaha xarunta SYL ee magaalada Muqdisho. guud ahaan daawadeel warkeed kala socoteen channelka waa naga inta. kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta badan meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si kastoo aad noola socotaan. halkani waa Suldaanka TV oo aad uga barateen warar saxan oo xaqiiqda ku salaysan iyo xogaha ka jira Soomaaliya. qodobadan qaybtan ku igi doona waxa ka mid noqonaya 3 qodob oo miday karta madaxweyne Farmaajo Siciid Cabdullaahi Dani haddii mucaaradka hawiye ay markaasi ka dhabeeyaan damacooda awood qaybsiga dalka. waxaan eegi doonaa warar sheegaya in wakiiladii Siciid Cabdullaahi Dani durbaba ay wada hadal toos la fureen jamaahiirta nabad iyo nolol si looga hortago qorshahan mucaaradku hawiye ay markaasi ku doonayaan in ay guddoonka baarlamaanka ku fariisiyaan nin ka soo jeeda beesha daarood. ma laga yaabaa inay midoobaan Dan iyo madaxweyne Farmaajo faahfaahin ku saabsan jamaahiirta nabad iyo nolol iyo jamaahiirta Siciid Cabdullaahi Dani oo xilligan la soo warinaya gorgortan siyaasadeed iyo biyaco waaweyn inay ku jiraan, taasoo ka dhigan mid ay ku midoobi karaan dagaalka guddoonka golaha shacabka iyo cidda noqonaysa. faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa. wararkeena kale waxaa ka mid noqonaya xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo dagaal culus ka dhex bilaabay mucaaradka kale, iyadoo
la soo warinayo in kooxda damul jadiid ay toos u bilaabeen dagaal lagu qaadayo musharaxiinta kale ee saameynta kula doorashada soomaaliya. haddaba xasan sheekh maxamuud raje intee la eg ayuu markaasi ka leeyahay hoggaanka dalka soomaaliya, mase jiraan xildhibaan 4 sano markaasi la soo shaqeeya xasan sheekh maxamuud oo xilligan codkiisa ku aaminaya? waxaan idiin soo gudbin doonaa damaca xasan sheekh iyo kooxda damul jadiid ay ku doonayso hoggaanka soomaaliya, iyo sidoo kale ujeedka laga leeyahay in ay markaasi xildhibaanada cusub ka dhaadhiciyaan aragtidooda siyaasadeed, iyo sidoo kale awood qaybsigay doonayaan inay ku bedelaan hoggaanka dalka. sheekh shariif sheekh axmed, cabdiraxmaan cabdishakuur, xasan cali khayro la soo warinayo inuu iska fogeeyo xasan sheekh, taasna waxay ka dhigan tahay qorshihiisa koowaad iyo dagaalka durbaba uu la galay musharaxiinta mucaaradka kala mid a ee saameynta kula doorashada soomaaliya. warkan ayaan kusoo gudbin doonaa. wararkeena kale waxaa ka mid noqonaya maxaa ka jira axmed madoobe inuu dhibaateeye siciid cabdulaahi dani, maxaase kala socotaa rajada uu xasan cali khayre geliyey hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe. xog sheegaysa in xasan cali khayre uu hogaamiyaha jubbaland u ballan qaaday inuu ka dhigi doono ra-iisul wasaaraha soo socda haddii uu markaasi la dhiso musharaxnimadiisa 16 kursiya godool loo xiray xasan cali khayre, iyo warar sheegaya in lagu booday hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi dani. haddaba siday noqon doontaa dowlad uu madaxweyne ka yahay xasan cali khayre, ra-iisul wasaarena uu ka yahay axmed madoobe? waxaan idiin soo gudbin doonaa qorshe la soo warinayo inay ku heshiiyeen hogaamiyaha jubbaland iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya. haddaba siday u suuro gelaysaa xukuumaddaas, maxaase laga fila karaa? faahfaahin ku saabsan ayaan dul istaagi doonaa. hogaamiyaha puntland oo laga cabsi qaba inuu kismaayo deg deg u gaaro kadib markii lagu wargeliyey in xildhibaanadii gobolka gedo gacanta loo geliyey musharax kale, dhaqaale iyo sidoo kale xillan looga qaatay. iyo sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ciidankii ugu badnaa lagu arkayo, gaar ahaan guryaha la dejiyey xildhibaanada ka yimid puntland iyo jubbaland, kuwaasoo lasoo warinayo in musharaxiintii kale ay la dhex marayaan ole xilli markaasi ciidamo dharcada la raaciyey. xildhibaanada ka soo galay baarlamaanka soomaaliya, jubbaland iyo puntland, siciidan ayaa doonaya in xildhibaanadiisa ciidanka dharcadka ay ilaaliyaan inaysan la kulmin musharax gaar ah, ballanqaadna la gelin. lafta garan sidoo kale waxaa la soo warinaya inuu gacan bira ku qabtay xildhibaanadiisa, isagoo markaasi xubnaha qaar u sheegay inaysan la kulmi karin musharaxiinta kale ee u tagan hoggaanka soomaaliya. musharaxii la kulmana tallaabo laga qaadi doono sida xoguhu sheegayaan. akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan, qodobada ayaan ku faahfaahin doonaa qaybtan. sheergareeya oo wararkayna saaxiibada kala gaarsiiya si ay kula daawadaan aragtidaada saliimka iyo fikirkaada suubanna kommentiga noogu soo qor. iminkana u diyaar garooba qodobadii aan dul maray oo faahfaahsan. waxaynu ku bilaabaynaa warkeenna. 3 qodob ayaa miday karta sida wararku ay sheegayaan. madaxweyne farmaajo siciid cabdulaahi dani haddii mucaaradka hawiye ay ka dhabeeyaan damacooda awood qaybsiga dalka in lagu kala hero. wararku siday sheegayaan, wakiilo ka socda siciid cabdulaahi dani ayaa durbadiiba bilaabay olole xoog badan oo looga hortegayo qorshihii cabdirashiid janan waa cabdirashiid xidig uu ku shaaciyey in uu u yahay guddoon markaasi baarlamaanka soomaaliya inuu u taagan yahay, u sharaxan yahay. waxayna wadahadal la fureen jamaahiirta nabad iyo nolol sida wararku ay sheegayaan, iyadoo looga hortegayo qorshaha mucaaradka hawiye ay doonayaan in lagu qaybiyo awood qaybsiga dalka, ama markaasi lagu bedelo awood qaybsigii 20 sano lasoo dhaafo lagu maamulayay dowladnimada soomaaliya. jamaahiirta nabad iyo nolol ayaa lasoo warinaya in durbadiiba ay bilaabeen inay soo dhoweeyaan kuwa ka socda siciid cabdulaahi dani. aragtidaas ayaa lasoo warinaya inay miday karto labada xubnood oo markaasi dab iyo daaf isku ahaa muddooyinkii dambe. taas ayaana ka dhigan mid xilligan loo arko in ay markaasi ogolaadaan in tartanka labadooda kaliya ay ku tartamaan xilka madaxweynaha soomaaliya haddii la dhiso musharax aan ahayn markaasi beelaha daarood. hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi dani si weyn ayuu uga caraysan yahay xidig go-aankii uu qaatay ahaa inuu isku sharaxo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya. taasna waxay ka dhigan tahay mid lagu dhibaateeyey ama lagu dulmiyey damicii dani iyo sidoo kale diidmadiisii ku aadaneed in musharax ka soo jeeda beelaha daarood oo u tartamay xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. wararka ayaa tibaaxaya in arrintaas saameyn weyn ay ku yeelato hogaamiyaha puntland iyo sidoo kale madaxweynaha iminka taladaha maxamed cabdulaahi farmaajo. wararka qaar ayaa sheegaya in haddii wadahadalladan ay bilaabeen kooxaha dani iyo sidoo kale nabad iyo nolol guulna laga gaaro, in laga yaabo in markaasi awoodda la isugu geeyo musharax ka soo jeeda
beelaha hawiye inuu guddoomiyaha golaha shacabka qaato wallow aan la dhayalsan karin beelaha degel iyo milifle iyo beesha shanaad oo iyaguna qabanqaabinaya shirweyne ay ku doonayaan inay ku bedelaan awood qaybsiga dalka maadaama ay leeyihiin xildhibaanada ugu badan ee baarlamaanka soomaaliya taasina ay tahay nambarka ugu weyn ee xilligan laga fila karo in baarlamaanka lagu bedelo awood qaybsigiisa wixii kusoo kordha wararkaas waan idiin soo gudbin doonaa oo isha ayaan ku hay doonaa qodobada kale haddii aynu eegno xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya ayaa dagaal siyaasadeed culus markaasi ka dhex bilaabay mucaaradka kale iyadoo lasoo warinayo in kooxda damul jadiid ay toos u bilaabeen dagaal lagu qaadayo musharaxiinta kale ee saameynta kula mucaaradka una taagan hogaanka soomaaliya xasan sheekh ayaa rajo weyn ka qabay inuu ku guulaysto hogaanka dalka 4 sanana soo aadan balse su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah xildhibaan la soo shaqeeya xasan sheekh 4tii uu hogaaminaya dalka 9 bilood aba sanad ku dhow lacaguna ay uga maqan tahay codkiisa ma sii doonaa oo kalsoonimo ku qabaa musharaxnimada xasan sheekh maxamuud su-aashaas waxaa isweydiinaya xildhibaanadii horey ula soo shaqeeya xasan sheekh iminkana ka mid a baarlamaanka 11aad ee soomaaliya balse xildhibaanada cusub ayaa lasoo warinayaa inay yihiin dhiig cusub kuna baraarugsan yihiin dhagartii xasan sheekh iyo kooxdiisu ay u geysteen dowladnimada soomaaliya tan iyo markii ay dalka maamulayeen taas ayaana ka dhigan midaan laga fila karin guul iyo sidoo kale natiijo wax ku ool ah in kooxda markaasi damul jadiid ay hogaanka soomaaliya ay ka keenaan siday ku doodayaan dadka qaar xasan sheekh wuxuu la coloobay xasan cali khayre sheekh shariif cabdiraxmaan cabdishakuur cabdikariin guuleed daahir geelle iyo guud ahaan musharaxiintii ka soo jeeda beelaha hawiye saameynta ku lahaa doorashada soomaaliya waxaana lasoo warinaya in arrintaas sabab ay u tahay in jamaahiirtiisu aysan doonayn inay la xifaaltamaan jamaahiirada kale ee ka soo horjeeda siday ku warramayaan dadka qaar dhinaca kale axmedoobe ayaa markaasi dhibaateeyey siciid cabdulaahi dani xasan cali khayre ayaana u ballan qaaday inuu sii doono xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya haddii uu markaasi dhiso xasan khayre iyo axmedoobe ayaa lasoo warinaya in xilligan isxulufaysi xoog badan sameeyeen xildhibaanada ka soo baxa jubbaland gaar ahaan kismaayo ayuu kaali weyn ku lahaa xasan khayre kuwa markaasi garbaharay loogu talagalay ceelwaaq loo wareejiyana xasan ayaa gacanta loo geliyey lacagta diiwaangelinta ergada iyo guud ahaan musharaxiinta lacagtooda waxaa bixinaya xasan cali khayre dhowr milyan oo lacag ayuu ugu talagalay inuu ku bixiyo sida wararku ay sheegayaan taasna waxay ka dhigan tahay heshiiskan in la dhaqangeliyo khayre iyo wadagaleen ninka la yihahdo axmedoobe sida ilo xogaala ku warramayaan axmedoobe waxaa loo ballan qaaday ra-iisul wasaaraha inuu noqon doono haddii khayre uu ku guulaysto hogaanka dalka awood qaybsigana awoodana laga ilaaliyo qabiilada waaweyn oo muddooyinkii u dambeeyey maamulaya soomaaliya sida beelaha hawiyaha ugu tunka weyn beelaha daaroodka ugu tunka weyn kuwaas oo lasoo warinayo in muddo dheer ay maamulayeen hogaanka soomaaliya khayre ayaa doonaya in beelaha markaasi dhexe ee daarood ka soo jeedaan ra-iisul wasaaraha uu siiyo beelaha dhexe hawiyaha ka soo jeedan uu sidoo kale siiyo madaxweynaha taasina waxay markaasi u suuragal u noqon doontaa inuu ku guulaysto hogaanka dalka waad ku mahadsantii daawashada muuqaalkan nabadgeli عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا وناكسن غيارت قيمها أي قدرين تبضن ملك سوى جوكتان ولبا سيكا صوت دولة صعوتان وسلطان كتيفي ودوغا برتين ورارسحان حقيق دانا كوسو ليسان iyo xogihii ugu dambeeyay ka jira Soomaaliya iyo caalamka qodobadan qaybtan ku soo gudbi doona waxa ka mid noqon doona Siciid Cabdulaahi Dani hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland oo dambiye waaweyn loo heesto iyadoo laga cabsi qabo in loo diido shahaadada musharaxnimo Dani wali waxa uu diidan yahay inuu iscasilo aba uu wareejiyo xilka Puntland balse shuruudaha ayuu ku hori doonaa haddii sida aan xogta ku helnay loo dhigo diiwaangelinta musharaxiinta iyo inuusan tartami karin nin xil kala haya Dani oo rajabel jooga isagoo garab ka waayay siyaasiyiinta beelaha hawiye iyo siyaasiyiinta beelaha daarood waxaa la soo warinayaa in hogaamiyaha Puntland uu doorashada ka hari doono dhowr sababood aba 3 sababood dartood sababta ugu weyn maxay tahay warkan ayaan ku dul istaagi doonaa wararka kale ee heena waxa ka mid noqon doona safiirka Shiinaha ee Soomaaliya oo weerar kulul ku qaaday dowladda Mareykanka isagoo sheegay inay tahay dalka diidan horumarka Soomaaliya dowladda Shiinuhu maxay u qorshaysay doorashada Soomaaliya maxaase kala socota heshiiskan ay wada galeen dowladda Shiinaha iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo warkan ayaan ku soo gudbi doonaa wararkeena kale waxa ka mid noqon doona warar sheegaya in xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ay diideen inay hubka kala baxaan xarunta Xalane sabab la yaab la ayaa la soo warinayaa inay ku diideen waxaana laga cabsi qabaa inay la galaan teendhada afisyooni hubkooda
yaa ka mid a xildhibaanadaasi diidan inay hubka ka saaraan teendhada afisoni oo lagu wado inay doorasho lagu qabto. faahfaahin ku saabsan xildhibaano lasoo warinayo inay weerar yihiin ayaan dul istaagi doonaa. qodobada kale aan qaybtan kusoo gudbi doona waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada gobolka gada laga soo doorto lasoo warinayo inay shir la yeesheen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, gaar ahaan kuwa lagu soo doortay magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gado. muxuu kala hadlay madaxweynuhu, maxayse u sheegeen, yaa bixiye shahaadada la siiyey xildhibaanadaasi, ma ka qaybgeli doonaan dhaarinta, iyo sidoo kale aydhikaarka guddoonkiisa. warkan ayaan kusoo gudbi doonaa. iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ololaha musharaxiintu ay ka wadaan caasimada soomaaliya ee muqdisho. sheergareeya muuqaaladan, qodobadaas ayaana ku faahfaahi doonaa qaybtan. waxaana ku bilaabaynaa warkeenna siciid cabdulaahi dani, hogaamiyaha dowlad goboleedka puntland oo markaasi dembiye waaweyn loo heysto, ayaa lasoo warinayaa inuu quus ka joogo doorashada soomaaliya, isagoo ka cabsi qaba in loo diido shahaadada musharaxnimo ee xilka madaxweynaha soomaaliya. dani weli waxa uu diidan yahay inuu wareejiyo xilka hogaanka puntland kuna wareejiye ku-xigeenkiisa. wallow ay socdaan kulamo looga soo horjeedo hogaamiye dani oo ka kala soconaya magaalooyinka muqdisho, boosaaso, garowe, gaalkacyo iyo magaalada nairobi ee dalka kenya. shirarkan ayaa ah kuwo markaasi xiriir leh oo lasoo warinayo in si toosa loo diidan yahay siciid cabdulaahi dani inuu markaasi isagoona xilka wareejin uu ka qayb galo tartanka xilka madaxweynaha soomaaliya. musharaxiinta qaar ayaa ku heshiiyey sida lasoo warinayo mucaaradka in dani sharuudaha lagu reebo musharaxnimada. nin madaxweyne ah aba nin xil haya ma u tartami kara xilka madaxweynaha soomaaliya. marka hore waa inuu iska soo casilaa 5 maalin ka hor inta uusan qaadan shahaadada musharaxnimo ayaa ku jirta sharuudaha lasoo rogi doono oo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ee markaasi loo soo diwaan geli doono. siciid dani isagoona iscasilin markaasi ma tartami doono sida xogtu sheegayso. taas ayaana ka dhigan mid xilligan rajabeel ku ridaysa hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi dani. ayaan lasoo warinayaa in xilligan uu diidan yahay in uu wareejiyo xilka hogaanka puntland. kulamada garowe ka soconaya waxaa hormuud u ah isimada iyo odayaasha dhaqanka gobolka nugaal. axmed garaash ayaana kaalin ku leh. siyaasiyiinta reer puntland ayaana taageeraya boosaaso. shirarka ka soconaya saraakiil ciidan oo b s f ee markaasi ka tirsan ayaa qayb ka ah. waxaa sidoo kale ku jira isimadii gobolka bari oo boqor burhaan uu qayb ka yahay. taas ayaana ka dhigan mid lagu diidayo. magaalada muqdisho sidoo kale shirar noocaasa ayaa ka socda. shirarkaas waxaa looga soo horjeedaa hogaamiye dani, xubno xilal horey kasoo qabta puntland, wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo siyaasiyiin ayaana kaalin ku leh. taas ayaana ka dhigan mid xilligan ay ku doonayaan inay markaasi dani ay kula markaasi dagaalaan inuu xilka wareejiyo. haddii uusan wareejin inuusan ka qayb gelin tartanka xilka madaxweynaha soomaaliya. shirarka nairobi ka socda waxaa hormuud u ah cumar cabdirashiid cali sharma arke, ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya. cumar cabdirashiid kaalin weyn ayuu ku leeyahay sida lasoo warinayo, sida xogtu sheegayso. taas ayaana ka dhigan mid loo arko in dani markaasi dhowr caqabad ay haystaan. siyaasiyiinta beelaha hawiye, kuwa beelaha daarood ayuu markaasi taageero ka waayey oo musharaxiinta ah una taagan xilka madaxweynaha soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu dhowr mar iskuday uu sameeyey. waxaa lasoo warinayaa inuu doonay inuu heshiis la galo, balse madaxweynuhu waa uu ka soo horjeestay go-aankiisa, wuxuuna u sheegay inuusan aqbali karin go-aan aan markaasi raalli laga noqon karin sida xogtu sheegayso. kulamadan uu dani la yeeshay guddoomiye dhabancad xasan sheekh maxamuud maxamed xuseen rooble ayaa lasoo warinayaa inuu markaasi doonayay inuu heshiis raadiyo, balse arrintaas waxaa lasoo warinayaa in laga hor istaago loo diiday inuu heshiis la galo musharaxiinta kale maadaama isagu uu fogeeyey markii hore. taas ayaana ka dhigan mid rajadii siciid cabdulaahi dani god dheer ku riday siday ku waramayaan dadka xogogaalka. dhinaca xalna markii aynu eegnay xildhibaano ka mid a baarlamaanka soomaaliya ayaa lasoo warinayaa inay diidan yihiin hub u yaala xarunta xalano gudaheeda inay la soo baxaan kadib markii wakiilada xalano ku sugan ay dalbadeen xildhibaanadan inay hubka ka saartaan abay kala baxaan halkaasi. wararku siday sheegayaan way ay diideen xildhibaanadan inay markaasi hubka la baxaan, waxaana cabsi laga qabaa teendhada afisoni in la galaan marka doorashada la gaaro, halkaasna uu taagtaag ka bilowdo. xildhibaanaduna ay hub isku adeegsadaan siday ku doodayaan dadka xogaalka. xildhibaanadan qaar ayaa lasoo warinayaa inay yihiin xubno musharaxiin inay ku jiraan. xubnahaas ayaana cabsi ka qaba in la beegsado haddii afisoni la tago. waxayna sidoo kale
walaac ka muujinayaan in gacanta la iskula tegi doono haddii markaasi hubka ay ka tagaan. cabsidaas ayaana ku jirta, balse arrintaas ayaa taagtaag hor la geli doonta doorashada Soomaaliya. dhinaca kale, dowladda Shiinaha ayaa weerar ku qaaday dowladda Mareykanka, waxayna ku tilmaamtay inay tahay dal diidan horumarka Soomaaliya. dowladda Shiinaha ayaa iska fogeysay inay markaasi raadinayso sidii ay saldhig military uga samaysan lahayd gudaha Soomaaliya. safiirka Shiinaha ee Soomaaliya warbaahinta ayuu la hadlay, wuxuuna ku sifeeyey arrintan xog been abuur ah oo hadal horay uga soo yeeray taliyaha ciidanka Mareykanka Afrika General Stephen ninka la yiraahdo ayaa dhawaan waraysi laga qaaday. wuxuu ku sheegay in Soomaaliya iyo Shiinuhu ay ka wada hadleen qorshaha dhismaha saldhig military oo Shiinuhu ka doonayo inuu ka dhisayo gudaha Soomaaliya, balse dowladda Shiinaha ma raadinayso saldhig military inay ka samayso Soomaaliya. sidoo kale Soomaaliya kama aynan markaasi wada hadleen mowduucaas aba arrimahaas, ma garanayno meesha xogtan laga keenay, ayuu yiri safiirka Shiinaha ee Soomaaliya. si kastaba, Shiinaha ayaa markaasi Mareykanka la soo warinaya loolan xoogan inuu ugu jiro saameyntooda geeska Afrika, iyagoo diblomaasiyiinta gaar ah u soo dirsaday arrimaha wadanka ama wadamada ku yaala bariga iyo bartamaha Afrika. labada wadan ayaa mid kasta doonaya inuu xiriir wanaagsan la yeesho dalkan oo sida maalgashi markaas ugu sameysto ugana faa'iideysto kheyraadkooda dabiiciga ah, balse Shiinaha ayaa u muuqda mid u soo dhawaanaya Soomaaliya 5 sano la soo dhaafay. taas ayaana ka dhigan mid uu ka raadinayo inuu xiriir wanaagsan la sameysto, heshiisna la galo dowladda Soomaaliya. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. nabadgelyo. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وناكسن داوداشا قيمة هي قدرتنا نجا مدن ميل والبو أتشوكتان هالكني ومرقاتي تي في كسر وهذا برنامج كنا فرنقين تحكت عالمك داوداشا قيمة هي قدرتنا نجا مدن برنامج كنا قضب بدأ أن ندرد كسر دونا وحكم ده روشك أو ود مهمة أفري إذا مدي يوكرين يودت كريت كها كسرنا ورشد لجو سمية برها كتعلم مجال ماريبول. waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada soconaya iyo goobaha hadda xabadaha ay ka joogsadeen. sidoo kale barnaamijku waxaan idinku soo gudbinaynaa fadeexada ku habsatay dalalka Faransiiska iyo Jarmalka kadib markii la shaaciyay in hub badan ay ka iibiyeen Ruushka si loo burburiyo wadanka Ukraine. warbixin xiiso badan oo arrintan ku saabsan ayaan idin haynaa ee daawadayaal mar kale soo dhawaada. wahagaag daawada fadlan haddii aad nagu cusubtahay channelka subscribe inoo saar, sidoo kale furgan balaalka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya. mahadsanid. aynu ku bilowno. ciidamada Ruushka ayaa ku dhawaaqay furitaanka marin bini'aadanimo maanta si loo sugo bixitaanka dadka rayidka ah ee ku jira dhismaha Azovstal ee Mariupol, halka Kievna ay weydiisatay xogayaha guud ee qaramada midoobay inuu xaqiijiyo heshiis kasta oo ku saabsan marinada bini'aadanimada ee warshadan. madaxa xarunta maareynta difaaca qaranka ee wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay hal dhinac joojiyeen weerarada culus ay ka wadeen waa dhanka warshadaha ee Mariupol, waxaana taasi looga gol leeyahay sidii loo badbaadin lahaa dadka halkaasi ku sugan, sidoo kalena ay isu dhiibi lahaayeen ciidamadii ku sugnaa. taas oo qayb ka ah dadaalada qaramada midoobay ay wado iyo sidoo kale isfahamka hordhaca ah ee Ruushka iyo Ukraine ay ka gaareen in la badbaadiyo dadka halkaasi ku sugan. geesta kalena wakaalada wararka ee Reuters oo soo xiganaysa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine waxay beenisay heshiis ay Moscow kula galeen in maanta marin bini'aadanimo laga furo Mariupol. taasi bedelkeeda waxa ay sheegeen in xogayaha guud ee qaramada midoobay ka codsadeen inuu damaanad qaado wax kasta oo jira si loo badbaadiyo dadka ku jira dhismaha hoose ee Azovstal. dhinaca kalena gooni-goosodka ee gobolka Donetsk bariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadoodu ay maanta 161 qof oo rayid ah ka dadgureeyeen magaalada Mariupol iyaga oo geeyay deegaanada ay maamulaan. waxayna gooni-goosod ka daabaceen sawirada gaadiidka gaashaaman iyo codbaahiyaal lagu rakibay kuwaasi oo ugu baaqaya in ciidamada Ukraine ee ku sugan warshada birta ee Azovstal ee Mariupol inay isdhiibaan. wariyaal ka tirsan Al Jazeera waxa ay gudaha u galeen dekedda Mariupol wax yar kadib toddobaad markii ciidamada Ruushka iyo kuwa gooni-goosadka ay la wareegeen gacan ku haynta dekedan. kooxdan ayaa la socday maraakiib ganacsi oo ajnabi ah oo weli ku go'doonsan dekedda ku dhegan xarunta warshadaha ee Azovstal, halkaas oo ay ku dagaalameen Ruushka iyo sidoo kale ciidamada Ukraine welina meelaha qaar dagaalada ay ka soconayaan. dhinaca kalena ciidamada Ruushka ayaa ku dhawaaqay in wejiga labaad ee howlgalka militariga Ruushka ee Ukraine uu diiradda saari doono sidii loo adkeyn lahaa gacan ku haynta Donbass iyo koonfurta Ukraine si loo furo wadooyin muhiim ah oo halkaasi ku yaala. dhankiisana taliyaha ciidamada cirka ee Ukraine ee gobolka bari ayaa sheegay in diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay lagu soo riday gobolka Kharkiv
gudoomiyaha gobolkan ayaa sheegay in 3 qof oo rayid ah ay ku dhinteen 3 kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta ruushka uu ka geystay gobolkaasi. sargaal sare oo u hadlay waaxda tareenada Ukraine waxa uu sidoo kale sheegaya in 5 xarumood oo ku yaala bartamaha dalkaasi la duqeeyay, halkaas oo khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh uu ka dhashay. dhanka kalena madaxa maamulka gobolka Lviv waxa uu ka warbixiyay qaraxyo iyo dab qabsaday 2 gobol oo ka tirsan 2 xaafad oo ka mid ah magaaladaasi maanta. wasaaradda difaaca Ukraine waxa ay sheegaysaa in ciidamada Ruushka ay sii wadaan weerarada ay ku doonayaan inay kula wareegaan gobolada Donetsk iyo Luhansk. weli daawadayaal barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka oo idinkaga imaanaya markhaati TV ayaa daawanaysaane markana aynu eegna bal wararka fadeexadda ah ee sheegaya in Jarmalka iyo Faransiiska ay si qarsoodi ah hub ugu direen ciidamada Ruushka ee ku sugan wadanka Ukraine. wargeyska The Telegraph ee kasoo baxa Ingiriiska ayaa sheegay in Paris iyo Berlin ay ka iibiyeen Moscow hub ku kacaya lacag dhan $295 milyan oo ay ku jiraan bambooyinka iyo gantaalada, waxaana loo badinayaa in hubkani uu durbaba Ruushku u isticmaalay dagaalka wadanka Ukraine. wargeyska ayaa sidoo kale xusay in uu helay cadeymo muujinaya in Faransiiska iyo Jarmalku ay u soo direen magaalada Moscow qalab ay ka mid yihiin bambooyin, gantaale iyo madaafiic, inkastoo midowda Yurub uu cunaqabateyn ballaaran kusoo rogay Ruushka, kaasoo lagu soo rogay wixii ka dambeeyay 2014 markaasoo Ruushka uu ku duulay jasiiradda Crimea ee Ukraine. hogaamiyaha Jarmalka Olaf ayaa toddobaadkan la kulmay dhaleecin ku aadan in uu ka cagajiidayo in uu hub culus geeyo dalka Ukraine. sidoo kalena kulamadii ugu dambeeyay ee Macron uu la yeeshay Putin ayaa sababay in isagana lagu eedeeyo in uu si hoose heshiis ula galay hogaamiyaha Ruushka. Paris iyo Berlin ayaa sidoo kale iska diiday cadaadiska Mareykanka iyo Yurubta kale, iyaga oo aan weli mamnuucin gaaska uga imaanaya Ruushka, waxayna si maalinle ah Ruushka u siiyaan lacag dhan $1 milyan iyaga oo uga iibsada gaaska. warbixintu waxay intaasi ku daraysaa in shirkadaha hubka sameeya ay Jarmalka iyo Ruushka ka iibiyeen hub isugu jira bambooyinka, gantaalada iyo gawaarida gaashaaman ee ay ciidamada isticmaalaan, iyagoo taas beddelkeedana Ruushka ka helay lacag dhan $137 milyan. Berlin ayaa difaacday heshiiska ay Ruushka uga iibisay hubka xilli Moscow ay saaran tahay cunaqabateynta midowda Yurub iyo Mareykanka, iyadoo ku adkaysatay in badeecada laga iibiyey kadib markii Kremlinka uu xaqiijiyey inay qalabka iyo hubka laga iibiyey aysan u isticmaalin dagaalka wadanka Ukraine. waxaa kale oo soo baxday in Faransiisku uu Ruushku ka iibiyey qalab military oo ku fadhiya $164 milyan, taasoo qayb ka ah 76 shati oo dhoofina. Paris waxay sidoo kale u ogolaatay dhoofiyaasha inay fuliyaan qandaraasyadii lagu heshiiyey ka hor 2014. marka laga soo tago bambooyinka iyo gantaalada lidka maraakiibta Faransiiska, waxaa sidoo kale Ruushka u direen kaamaradaha lagu xiro taangiyada oo 1,000 xaba ah iyo qalab lagu hago diyaaradaha dagaalka iyo kuwa helikobtarada. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ruushka ee Ukraine 24 Febraayo, midowda Yurub waxa uu soo rogay xayiraad badan oo ku saabsan alaabooyinka iyo badeecadaha Ruushka. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Yurub ayaa tallaabadan ay qaadeen Faransiiska iyo Jarmalka ee ay hubka uga iibiyeen Ruushka ku tilmaamay tallaabo doqonnimo ah. waxaa la joogaa waqtiga Faransiiska iyo Jarmalka ay toosi lahaayeen oo ay u arki lahaayeen xaqiiqooyinka sida ay yihiin, ayuu yiri sargaal sare oo ka tirsan midowda Yurub. iyadoo oo Ukraine ay aad u dalbanayso hub ay isaga difaacdo duulaanka Putin, Jarmalka iyo Faransiiska way aaminsan yihiin, laakiin waxa ay ku farxeen inay hubka iibiyaan Moscow, ayuu hadalkiisa sii raaciyay sargaalkan. marka laga soo tago Jarmalka iyo Faransiiska, sidoo kale Talyaaniga ayaa isna Ruushka ka iibiyey shixnad hub ah oo lagu qiimiyay $24 milyan kadib cunaqabateynta Yurub. sidoo kalena Austria, Bulgaria iyo Czech Republic waxa ay Ruushka u dhoofiyeen hub qiimihiisu yahay $53 milyan intii u dhaxaysay 2015 iyo 2022. dhinaca kalena aqalka cad ee looga armiya Mareykanka ayaa Generaal Howlgab u magacaabay isu duwidda kaalmada military ee uu dalkaasi siinaya Ukraine. General Terry Wolf oo dhowaan ka mid noqday golaha ammaanka qaranka Mareykanka ayaa khibrad u leh hawsha loo igmaday, sida ay sheegeen dadka aqoonta u leh. waxa uu taliye ku-xigeen u ahaa isbahaysigii jabiyey Daesh. waa qofkii ugu wanaagsanaa ee lagu aamini karo hawshan, ayuu sargaal aan magaciisa la shaacin u sheegay warbaahinta. Mareykanka ayaa doonaya in Ukraine ay hesho hub ku filan xilligan oo uu meel adag marayo duulaanka Ruushka, islamarkaana ciidamadiisa ay dagaal saf ballaaran ah ka wadaan bariga iyo koonfurta dalkaas, iyadoo oo Ruushkana uu sii xoojinayo weerarada ka dhanka ah Ukraine. daawad aragtidaada fadlan qaybta hoose commentiga inoogu reeb barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka idinkaga imaanayay Markhaati TV. waanaga intaas barnaamijka mid ka xigeentaan ku kulmi doono. nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid ku soo dhowo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa 25 bisha afraad sanadka 2022 qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah maraykanka oo qaaday tallaabo qarxin karta dagaalka saddexaad ee dunida maxay tahay digniinta ka soo yeertay dowladda ruushka waxaa kaloo aan eegi doonaa macluumaadka ku saabsan wararkii ugu dambeeyey kulanka saddex geesoodka ee lagu taageerayo falastiiniyiinta oo ka dhacay magaalada qaahire ee dalka masar mas-uuliyiinta yeeshay iyo macluumaad ku saabsan wararkii ugu dambeeyey dagaalada dalka Ukraine ee galay maalintoodii 61aad muxuu madaxweyne farmaajo uu ka yiri dib u doorashada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falanqayn doonaa ku soo dhawo mar kale maracada show ka dhib aragtidaada qodobka ku soo jiita aad baad u mahadsantahay waana kaga mahad celinaya inaad ka mid tahay saaxiibada sida weyn noo dhiirigeliya inta aan ku guda jirno tabinada qaybaha kala duwan ee barnaamijyada aynu ku falanqayno siyaasadda caalamka aad baad u mahadsantahay aynu ku hormarno dowladda ruushka ayaa waxay ka digtay weerar ka dhana dayax-gacmeedyada inuu sababi karayo dagaal caalami ah oo saddexaad sida uu sheegay Dmitry Rogozin oo ah madaxa wakaaladda hawada sare ee dowladda ruushka kadib markii uu warbaahinta ula hadlay maalintii Sabtida qorshahan ayaa waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka ay door weyn ay doonayso inay ka ciyaarto kaasi oo sababi karaya dagaal saddexaad oo caalami ah kaas oo guud ahaan dunida gilgilaya waa in maskaxda lagu hayaa in burburinta dayax-gacmeedyada shisheeye ay ka dhigan tahay dagaalka saddexaad ee dunida mana jiro wax shaki ah oo ku saabsan arrintan ayuu yidhi Rogozin isagoo isticmaalaya ereyga laatiinka ah ee loo adeegsada sababaha sharci ahaan si rasmi ah loogu bilaabi karayo dagaalada maxaa ruushka ka qeylisiya waqti xaadirkan Mareykanka ayaa wada mashruuca Boeing X-37 oo ah dayuurad aan cidina wadin oo tagi karaysa hawada sare iyada oo hubaysan taasi oo tan iyo sanadkii 2010kii howlaheeda la qarinayay qaybna ka ah mashaariicda wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka sirdoonka ruushka ayaana u muuqanaya inuu helo mashruuca Mareykanka uu damacsan yahay waqti xaadirkan diyaaradan oo hanti muhiim u ah militariga dowladda Mareykanka ayaa marka laga soo tago inay sameyn karto sahan iyo sirdoon waxaa sidoo kale ay qaadi karaysaa hubka nuclearka iyada oo qorsheynaysa inay duulimaadkeedii lixaad ay ku tagta hawada sare walow ruushka uu sheegay in haataanba ay ku jirto hawada sare iyada oo sidoo kale la sheegay diyaaradda kaliya ee marka hawada sare ka soo noqota si caadi ah u degi karaysa ruushka ayaa wuxuu waqti xaadirkan uu ka digayaa in hawada la hubeeyo iyada oo Rogozin uu sheegay in markii arrintaasi iyaga iyo Shiinaha ay Mareykanka ay ula tageen uu ku salaamay dhagal leer u duleelo oo kaliya ruushka laftiisa waxa uu leeyahay diyaaradda MiG-31 Foxhound oo qaadi karaysa gantaalo lagu ridi karaya hawada sare oo lagu burburin karaya dayax-gacmeedyada iyadoo 2018kii la arkaya diyaaradan oo ka timid xilligii Soofiyeedka oo ay galbinayso diyaaradda kale ee MiG-29 in hubka waxgumaada la geeya hawada sare ayaa si caalami ah mamnuuc u ahay tan iyo sanadkii 1967 dhinaca kale Boris Johnson ayaa Master Zelensky u sheegay in gawaari badan oo gaashaamo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hubka taangiyada loo diri doono gudaha dalka Ukraine waxaana sidaas sheegay afayeen u hadlay aqalka madaxtooyada dowladdaasi Ingiriiska Zelensky ayaa ugu mahadceliyay ra'iisul wasaaraha dowladda Britain sidoo kale inuu qayb ka ahaa tababarka la siinayo Israa'iil u dhalatay dalka Ukraine kuwaas oo door weyn ka ciyaaraya haddii ay dib ugu soo laabtaan dalkooda dagaalada Ukraine ka soconaya sidaasina waxaa lagu sheegay qoraalka ka soo baxay dowladdaasi Ukraine dhinaca kale madaxweynaha dowladdaasi Ukraine Zelensky ayaa Master Johnson uga warbixiyay xaaladda gobolka Donbass halkaas oo ruushka xoog uu saaray dadaaladii ugu dambeysay ee militariga halkaas isugu geeyay labada hogaamiye waxa ay dhaleeceeyeen weerarada joogtada ee ciidamada dowladda ruushka ay ku beegsanayaan bartilmaameedyada rayidka oo ay ku jiraan magaalooyinka Mariupol, Odessa iyo magaalada Lviv ra'iisul wasaaraha ayaa u sheegay Master Zelensky in ruushka lagula xisaabtami doono falalkaasi iyo in dowladda Britain ay gacan ay ka geysan doonto ururinta cadeymaha ah dambiyada dagaal ee ruushka uu ka geysanayo gudaha dalkaas waxaa kaloo Johnson uu shaacu ka qaaday inuu soo cusboonaysiin doono cunaqabateynada dowladda UK ee ka dhanka xubnaha militariga ee Ruushka sida warbixinta lagu sheegay labada hogaamiye ayaa waxay ka wada hadleen sidii dowladda Britain ula shaqayn lahayd saaxiibadooda si loo horumariyo xalka amni ee mustaqbalka fog ee dowladda Ukraine iyaga oo ka wada hadlay wada hadallo lala yeelanayo wadamada kale iyo kooxaha kale si looga bixiyo taageero maaliyadeed oo dheeraad ah oo uu ku jiro shirkii wasiirada maaliyadda G7 ee dhacay Arbacadii la soo dhaafay marka taasi laga yimaado ruushka uma muuqanayo inuu dhig jalaq u siinayo hadallada kala duwan ee ka imaanaya guud ahaan dalkaasi iyo sidoo kale wadamada ka soo horjeeda duulaanka ruushka ee dalkaasi Ukraine falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaad ka daawanaysaa maracada show markaana aynu eegno
saddexda dowladood ee carbeed ee Jordan, Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa kulan waxay ku yeesheen magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Waxaa la sheegay inay ka shaqaynayaan sidii loo taageeri lahaa shacabka Falastiiniyiinta, xaalad xasilooni ah loogu soo celin lahaa magaalada ku taala dhulka Falastiiniyiinta ee bariga magaalada Qudus. kulankan saddex geesoodka ayaa hogaamiyaasha sidoo kale waxaa la sheegay inay ka wada hadleen arrimo dhowr oo ku saabsan Falastiiniyiinta. kulankan oo dhacay shalay oo Axad ahayd, boqorka dowladdaasi Jordan, madaxweynaha dowladda Masar iyo sidoo kale dhaxal sugaha boqortooyada Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inay kulankan ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee magaalada Qaahira, sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay maxkamadda dowladda Jordan iyo sidoo kale xafiiska madaxtooyada ee dowladda Masar. isku dhacyada ayaa bulihii ugu dambeeyay waxay ka taagnaayeen masaajidka Al-Aqsa, kuwaasoo u dhexeeya shacabka Falastiiniyiinta ee geesiyaasha ah iyo ciidanka Yahuudda, kuwaasoo gebi ahaanba ka soo horjeeda in la carqaladeeyo goobta ay ku dukanayaan. sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay dowladda Jordan, hogaamiyaasha saddexda dhinac ayaa dadaalkooda ugu badan waxay sheegeen inay isugu geyn doonaan sidii xaalad xasilooni ah loogu soo celin lahaa magaalada Qudus, sidoo kalena loo joojin lahaa dhammaanba dhibaatooyinka ka taagan masaajidka Al-Aqsa. sidoo kale wadamadan carabta hogaamiyaashooda ayaa ugu baaqay Israa'iil inay joojiso dhibaatooyinka ay ciidamadooda ka geysanayaan masaajidka Al-Aqsa, halkaas oo labadii maalmood ee ugu dambeysay si weyn loo baahinayay muuqaalada muujinaya dhibaatooyinka ciidamada Yahuudda ay u geysanayaan dadka rayidka ah ee halkaasi ku cibaadeysanaya. waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah. dhinaca kalena dalka Yemen haddii aynu eegno, kooxaha Xuutiyiinta ayaa la sheegay shalay inay sii daayeen 14 ruux oo ajaaniib ah, kuwaas oo la sheegay in ay xabsi ay ku hayeen. qaramada midoobayna waxaa la sheegay in ay si weyn kaga walaacsan tahay dib u dhaca ku yimid diyaaradii dhanka rayidka ahaa ee la qorsheynayay inay shalay ka duusho garoon diyaaradeedka magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen. laakiin waxaa lagu warramayaa muwaadiniintan inay ka soo kala jeedaan dhowr dowladood oo kala duwan, waxaana ay gacanta ugu jireen kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ka dagaalamaya sanadihii ugu dambeeyey. qaarkood waxaa lagu warramayaa inay gacanta ay ku hayeen kooxaha Xuutiyiinta 2 ilaa 3 sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo ka dhigan in gacanta ay ku dhigaan Xuutiyiinta markii ay ku soo xoogaysanayeen magaalooyinka waaweyn ee gudaha dalkaasi Yemen. wararkii ugu dambeeyay haddii aan eegno, hay-adda sirdoonka ee dowladda Britain ayaa shaaca ka qaadaysa in ilaaminka Ruushka wax horumar uusan ka gaarin dagaalada uu ku qaaday gobolka Donbass ee dhanka bari ee dalka Ukraine. telefishinka CNN ayaa baahinaya madaxweyne Joe Biden si cad inuu u sheegay in ciidamadooda aysan marnaba ka garab dagaalami doonin ciidanka dowladda Ukraine marka la eego xitaa ciidamada cirka, laakiin waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan taageerada maaliyadeed ee ay siinayaan ciidamada dowladdaasi Ukraine. hadalka madaxweynaha dowladda Mareykanka ayaa ku soo aadaya xilli Anthony Blinken iyo Lloyd Austin ay gaareen magaalada Kiev iyaga oo ballan qaaday 700 milyan oo dheeraad ah oo lagu caawinayo ciidanka militariga ee dowladdaasi fadhigeedu yahay magaalada Kiev. Faransiiska haddii aynu eegno, sidaan macluumaadkeennii hore ku baahinayba, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa mar kale 5 sano ee soo socota hogaamin doona guud ahaan dalkaasi ilaa 2022 ayuuna hogaamin doonaa dalka Faransiiska maadaama doorashadii dib ugu guuleystay. marka taasi laga yimaadana, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa war ka soo saaray doorashadii ka dhacday dalka Faransiiska, wuxuuna hambalyo u diray madaxweynaha dalkaasi dib loo doortay Emmanuel Macron. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku sheegay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin doorashada ka dhacday dalka Faransiiska iyo guusha Emmanuel Macron uu ka gaaray. sidoo kale Farmaajo ayaa waxa uu xusay in Soomaaliya ay la shaqayn doonto madaxweynaha dib loo soo doortay Emmanuel Macron. dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed way ku faraxsan yihiin in madaxweyne Emmanuel Macron dib loo doorto, waxayna u rajeynayaan guul, ayuu qoraalkiisa ku yiri madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. qoraalka madaxweynaha loogu hambaliyay Emmanuel Macron ayaa sidoo kale lagu sheegay in wadamada Faransiiska iyo Soomaaliya ka dhaxeeya xiriir aad u wanaagsan, sidoo kalena iskaashi soo jireen ay leeyihiin. doorashada Faransiiska oo shalay loo dareeray wareegeedii labaad waxaa mar kale guul u soo hoyatay madaxweyne Emmanuel Macron kadib markii uu ka adkaaday haweeneyda xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen la yiraahdo. Macron waxa uu jeediyay khudbadiisii guusha kadib markii Le Pen ay qiratay in laga adkaaday, waxaana uu ammaanay shacabka dalkiisa isaga oo bogaadiyey 5 sano ee dheeriga ah ee loo doortay inuu hogaamiyo guud ahaan dalkaasi Faransiiska. falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga intaa. qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.